General Odawa Yusuf Rage taliyaha militariga Soomaaliya oo bahdilay saraakiisha Uganda waaqab Soomaalinimo iyo go'aan geesinimo leh shargareeya warkan geesida dalkeena quseeya wuxuu General Odawa iska diiday inuu la kulmo taliyaha ciidamada Uganda oo Muqdisho ku yimid qarsoodi warbixintan aad kala socotaan Volleyball News waxaan ku faahfaahinaynaa go'aanka uu qaatay taliyaha ciidamada Soomaaliya sida loo bahdilay saraakiisha Ugandaiska ah sababta keentay bahdilaada qaladka ay sameeyeen ciidamada Ugandaiska iyo guushan u soo hoyatay ciidamada geesiyaasha Soomaaliya hase ahaatee marka hore shargareeya muuqaalkan oo meel walba gaarsiiya waatahay aan ku horeynay waxa magaalada Muqdisho maalmo ka hor soo gaaray isla markaana shalay la kulmay madaxda dawladda sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble taliyaha ciidamada lugta Uganda oo wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkaas Uganda Yoweri Museveni haddaba wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliska ciidamada xoogga ayaan lagu wargelin imaanshiyaha taliyahaasi iyo saraakiisha la socotay waxaana go'aan geesinimo ah oo qab Soomaalinimo laga dareemayo qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalkeena Soomaaliya General Odawa Yusuf Rage wuxuuna diiday inuu si fudud kula kulmo saraakiisha Ugandaiska ah ee dalkeena ku yimid safarka aan la sii ogeyn xogo kala duwan oo aan helnay ayaa muujinaya in General Odawa Yusuf Rage oo u sheegay saraakiisha Ugandaiska ah mas'uuliyiintii afhayeenka ka ahaa ee ka dalbaday inuu la kulmo inaysan si sharci ah dalka ku joogin aysan wax ogeysiisa soo gudbisan intii aysan wadanka imaan aysan ahayn inuu la kulmo isagoo taliyaha ciidamada ugu sareeya General Odawa Yusuf Rage ayaa go'aankan geesinimada ah ka dhabeeyay isagoo ku qasbay saraakiishii Ugandaiska ahaa ee wadanka sida qarsoodida ah ku yimid inay iska laabtaan iyagoo aan la kulmin saraakiisha ugu sareeya wadanka General Odawa Yusuf Rage ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan ahayn wax lala kulmo isla markaana uusan macquul ahayn in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu la kulmaan nin uu ku tilmaamay aabihiis inuu Soomaaliya ka aaminsan yahay fikrad xun iyadoona dhawaan oo madaxweynaha wadanka Uganda ciidamada Soomaaliya aflagaaday arintaasi oo taliyaha Odawa Yusuf Rage oo si aad kaga carooday isla markaana ku tilmaamay inay tahay mid qabka Soomaalinimada ah dhaawacaysa taliyaha General Odawa Yusuf Rage oo ah nin ku adag Soomaalinimada geesinimada iyo ixtiraamka wadanka ayaa arintan si weyn isaga diiday waxaana lagu xasuustaa Juulaay horaanteedii inuu si weyn kaga hor yimid isla markaana ka dalbaday beesha caalamka iyo wadamada quudiya ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Ugandaiska ah inay dalka ka saaraan maadaama uu sheegay inaysan diyaar u ahayn inay wadanka difaacaan lana dagaalamaan ururka Al-Shabaab General Odawa Yusuf Rage ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in taliyaha ciidamada AMISOM oo xilligaas uu khilaaf kala dhixay ilaa iyo haddana aan khilaafkaas la xallin uu ku sheegay inuu yahay nin aan u diyaarsanayn inuu Soomaaliya howlgal ka qabto laakiin ay yihiin calooshu shaqaystayaal doonaya inay wadanka xaalufiyaan isla markaana aysan diyaar u ahayn inay howlgal qabtaan laakiin ay bulshada Soomaaliyeed ku yihiin dhibaato isla markaana ay ku kooliyaan Al-Shabaab oo sheegay ujeedadii loo keenay inay hadin la dagaalamaan go'aankan uu qaatay General Odawa Yusuf Rage ayaa waxa ay tahay mid ku dayasho mudan isla markaana ku dhiirigelinaysa taliyayaasha ciidamada isaga ka hooseeya iyo saraakiishii ku sugnaa goobta isaga diiday inuu la kulmo taliyaha ciidamada lugta ee wadanka Uganda inay ku dayan doonaan isla markaana ay qaadan doonaan go'aankan geesinimada leh oo horseeday General Odawa Yusuf Rage oo nin ay ku weyn tahay qabka Soomaalinimada una diyaarsan inuu cadawga ka difaaco Soomaaliya haddaba daawade maxay kula tahay adiga go'aankan geesinimada leh oo qaatay taliyaha General Odawa Yusuf Rage mise yahay mid ku dayasho mudan oo ay u baahan yihiin saraakiisha ciidamada inay ku daydaan isla markaana uu ku beermo qabkana Soomaalinimadu ka muuqato
aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga ee faallada warbixinteena intaan warbixin tan lacayna dib ugu kulmi doono waa bahda Volleyball News oo idinku dhaafaya qarannimo iyo qabweyne ayaa inoo ballana nabaday.